hadda waxaan dhex taaganahay bartamaha magaalada Zeylac meeshan hadda aan joogno waa masjidka Qiblataynka السلام عليكم وقدامبين سيلع آديتانك زيلع ما أهن متسهلا وحان تجي كدب سفر دير وتفاصيل بدن له هذا بس يدادو أركتان إن أن ألف كسو باللونة إلى با قصة تجيتانك مقالة سيلع ظهر نص ساعة انت أنا كدقائق مقالة هرقيسة هذا وحان جوغا هوتيلك دام الهوتيل دهبشي لمقالة هرقيسة ورنتي أن يعني ما شاء الله هوتيل أدو في عنه بهاشان طبعا زيلع وكلوشاي جو كلوليه سيداس درتيد مالينا وانكو آدناهي اما دوبيتان كموضوع كسابسن زيلع وحو نقون دونا مالين سيداس درتيد wax madaxa lagu xirto waa loo baahan yahay marka koobaad haddii aad ku fikirayso booqashada magaaladaas aadan ka shalay doonin booqashadeeda waxaad ogaataa in uuna jirin gaadiid toos oo aada magaalada ma jiro gaadiid hadda Hargeysa ka qaado tusaale ahaan ku geynaya Saylac sidoo kale waxaad u diyaar garowdaa ku dhawaad 400 kiiloomitir dhul raf ah inaad sii jafto هذا قابك كليه aad ku tagi karto Saylac waa inaad gaari kareysataa si khaas ah hadii ay noqoto mid aad adig kaliya kareysatay ama aad koox dad iskula kareysateen ama sidoo kale in aad raacdo gawaarida Djibouti u socoto kadibna aad uga degto Lowyacdo xuduudka Djibouti kadibna aad gaari kale ka soo kareysato halkaas sidaasna aad ku tagto Saylac hadaba aniga ka Cumar ahaan sideen ku tagay arigan ayaan raacayna meeshan hadda aan taaganahay waa meesha ay ka baxaan gawaarida meeshan waa astaanka gawaarida aad Djibouti ila Saylac halkaas oo soconna hada waa habeen maaha macna qorraxda dhici rabto qorraxdii in ay dhacdo wax yar baa ka dhiman caawa dhan ayaan sii jafaynaa ilaa aan ka gaarno Saylac ku dhawaad 400 kiiloomitir waxaan raacay gaari Land Cruiser rakaab ah Djibouti u socday asagoo ii ballan qaaday ninka darawalka ah iyo dadka kareeyaba sidaan ku heshiinay in uu Saylac geynayo asagoo kadibna طبعا safarkiisa sii wadan doona ilaa Djibouti laakiin markaan gaarnay deegaan lagu magacaabo Caasha Caddo ayuu ugu yiri Saylac kuma leexanayo ee isdabar war sidan kuma soo heshiinina sidaad wax wada ma isdabar Saylac aad halkan iska joog kadibna hadii uu jiro gawaari qaado kale oo raac Saylac hadii kale waxaan ku geyn Lowyacdo kadibna Lowyacdo gaari kale ka soo kareysa hadda saacadu waxay tilmaamaysaa waa 3 habeenimo yani fajrka wax yar ka hor waxaan imaanay tuulo yar oo lagu magacaabo Caasha Caddo oo wax yar aanan fogeyn u jirto Saylac ayaan joognaa halkan ujeedkuna waa Saylac runtii waa mashruuc aan filaynin isjiijid kadib طبعا waqtiga aad buu u yaraa yani muran waxba kuma soo korinayo waxaan ku qasbanaaday in aan u raaco Lowyacdo ku dhawaad 50 kiiloomitir kadibna aan gaari kale ka sii kareysa halkaas sidaasna aan ku tago Saylac markaad sii galayso Saylac waxaad dareemay dareen aad qiyaasi karin dawacadan sidii in ay tahay ilaaliyaha magaalada ayadoona dadka ka baqaynin ayay wadooyinka magaalada laga gala taagan tahay mowqif runtii cajiib ah haddaba muuqaalkan ku saabsan magaalada Saylac waxaan jeclaaday
in aan muuqaalka toos u duubo anigoo faalla toosa ka bixinayo magaalada dareenkayga iyo radu ficilkayga dhabta ah in dadku ay dareemaan sidii in aad ila socotaan ama aad hadda tagtay magaalada ku soo dhawaada muuqaalkan ku saabsan Saylac hadda waxaan dhex taaganahay bartamaha magaalada Saylac sida noo muuqato طبعا waxaan aragnaa guryahan aadka qadiimka u ah oo inta badan la dhisay xilligii Cuthmaaniyiinta iyo waliba ka sii hor haddii aad dhinacan fiirisaan طبعا waxaa noo muuqda guri qadiim ah sidoo kale waan sawiri doonaa waxaad aragtaan raadad aad iyo aad qadiim u ah waqti laga joogo 690 sano yacni ku dhawaad 700 oo sano haddii aan si sax u sheegno taariikhdu markay ahayd 1331 ayaa waxaa imaaday magaaladan Saylac waa 1331 690 sano ka hor markuu imaaday wuxuu ku tilmaamay madiina mutaraamiyat al-atraaf yacni magaalo aad u weyn ibn Battuta markuu imaaday magaaladan Saylac waqtigaas wuxuu ku tilmaamay magaalo aad iyo aad u weyn oo dad badan ay ku nool yihiin waxayna leedahay waliba ereyga wuxuu adeegsaday walaha suuqun cadiima مسجدك قبلتينك sidoo kale inaan hilmaano ma ahan raadadkaas qadiimka ah yani magaaladan markaad imaado Saylac markaad imaado waxaad u malaynaysaa inaad safartay inaad 1000 sano 2000 sano 3000 sano gadaal aad u laabatay markaad aragto dhismayaashan كولبا ومقالة كمد يعني ماشي عرفت دكتا وحيا رادد قديم ان هذا كان مسجد مقالة Saylac waxaad ku tilmaami kartaa inay ka samaysan tahay laba qaybood qayb يعني guryahaas qadiimka guryahan qadiimka dhagax ka samaysan laga tagay iyo guryaha cusub يعني laba zaman oo isku dhex yaal zaman aad qadiim ah زمن هذا أنا نهاي زمن كان هذا أنجوجنا طبعا ماشان هذا أنجوجنا ومسجد كقبلتين سيدنا مقطع ان اسمه كصعدة وانا الحريق جذها لو ما قال لك هذه هذا ظهرت نظام في رسام واقبله تن سيدك الواقبله يعني مسجد كان وحالة دسي مركي قبلة أي هاي بيت المقدس تصحي موجنيسا يعني حلقة إسلامك وسوقري ماشان وحام معقول طبعا آدي إن ماشان أن تاجن هاي إيريادن أن جوجنا أي صحابة إمادين إن أي صحابة إمادين مسكة قبلتين هديان مركل كعلينا محراب أما منبر سيدو كلا منبر كلا أو طبعا متكو وجهن مكة المكرمة يمتكو وجهن بيت المقدس أن دولك الشام مدة طبعا أيا لو تكون جرينا على بيت المقدس إلى إله سبحانه وتعالى وكسرت وجه مركز دنبه وحنكون وجه دونا أو أن قبلة كاجد دونا قبلة أرجعشة أو مكة مسجد كأن اسمه كصعدة والله دسي أن وانحرين دير كيس لما قدر لكن أرك في عن إيرونتي أنا مركان حتى وأنا مقلقين ضيعت كصعدة أنت أنا إيمانين أرنكا في عن الحمد لله أن إسلها طلوا أما يعني لها خلاص وان لسينا لكن سيدنا مقطع راتكي يعني إن ما أنت شاهدا أن أرقنا تاريخ ذا إيه أصل لماذا مقالة Saylac جد كاس ديرنا صامر طبعا وأقلنتها إماشيها ان Saylac عاد قرحده way kula shaay qorraxdu aad bay u kula shaay meeshan laakiin booqashada
raadkan booqashada taariikhdan booqashada magaaladan qadiimka ah wax loo dhiga ma lahan. haddaan waxay dib ugu yara laabanay ibnu batuuta markuu imaaday Zeylac dadka degan طبعا Soomaalida deganeed kuma una tilmaamin in ay yihiin xabash kuma una tilmaamin sidoo kale kuma ayna tilmaamin in ay yihiin Arab wuxuu ku tilmaamay ereyga wuxuu adeegsaday baraabira ama barbar wuxuu yiri waa magaalada barbarka oo طبعا markii la sii fasiray loola jeedo dadka Afrikaanka aan ahayn طبعا xabashada aan ahayn Arabna aan ahayn Soomaalida dadkaas sidaas Ilaahay u abuuray Soomaalida ayuu ula jeeday markuu imaaday ibn batuuta magaaladan Zeylac waxaa jirto macluumaad la yaab leh macluumaad cajiib ah runtii uu ii sheegay yar ka mid ah deegaanka wuxuu yiri Zeylac haddii ay imaadaan ama Zeylac eyga iyo dameeraha waa ka mamnuuc markuu leeyahay maahan in laga mamnuucay وإن حيري هدي أي إمادان أي دمنايان معلوماتان الله أعلم سيدي صحتي لكن حيري إيجا يدمرها هدي أي زيلع سوقلان زيلع ذن هدا نحتاجن هاي مركي مقالة أي يعني كإمادان ننع كريم مقالة لقى سوقلا أي دمن أيوري إيجا يدمرها إلى هدا أنتي أنجوجي أن ما أركن أن أي يدمر سوقلا ما أرك معلومات طبعا حنرجينا إن ضد إن كومنت قبل حسان قفك حقيقة أو هي واحد أي تاي إن صح تاي إن كلا جت كان اسمها إن هدي ونقف كل السعانين طبعا ما أقون كرتد اسمها مسجد كقبلتين ما أقون كرتد صوابته من نارت كر وح كرك هم وقناة ملا لكن هدي عندنا عن كسر قلنا وعندنا على كسر مرنا وحضر كيسا إن محراب كقديم كأها أصل كأنه ولد هاجين دين عن مركز كسر قشة أنا أركيسه مسجد كقبلتين لا إله إلا الله أن أدي أن سكر دين عن كسر قلنا تصوى محراب ومنبر كوجها مكة المكرمة أما الله أعلم والله يعني قاري صار جد جوي بقى ساكير قسمي ما هو كان إنه كوجها هي مكة المكرمة يا إنه كاس كوجها هي بيت المقدس لكن وحن سعد أرجناه من بركان يصيدوا كلا من بركاس أو وحلو بحين مسجد كان مسجد القبلتين مساجد كلبض قبلة له وحرجينا نسفعنا أركتان محراب كان محراب كان صيدوا كلا من أكو جهني مكة المكرمة من أكو جهني هي بيت المقدس قال بيها بدأ طاقة بيو على شو تاجيهين قالوا حداقة يا بيها رنتي مركو ابن بطوطة ماضي لح بقول 19 سنة كورسان صار شقني وقلت الماء ضد الديان كمعنا إني قال قشان وقياس كرت إلى ما أنت هضوء ماضة ما أنت دي ابن بطوطة اللي صارنا ولا يوم ماضة طبعا ولا يحب اسمه بدلين قال مقالة السداء هيد متكمدة دكامة زيلع طبعا ما أهل قديم أما ما مد واهر اللي صي هدا يا طبعا كقاضنا هنا عصير ما دام الجو زيلع وآد وكلوا لي هي أنا لبنان إنه ضلني راي لصعد درا ولا يركله لصعده مركال كان عصير كعبينا دتك غير زيلع حتى دتك هذا الدقن حن من دوح كصوت تاريخ وقديم هنا جعليين حتى أرق العجها ماشي اللي يقولوا جدو كان أنا هدا عصير كان يعبتان كان كقدرني ما دام الجو زيل عسان شقني وكلوا لي هذا وحن جوجنا تكدي قديم كهيد مقالة زيلع تكدان كومت المامين إني تقديم يعني ما ضاينه تكد قديم هن جوجنا وتكدي مدة دير أما وقت بدن أساس واحد أفريقيا أما جيس كأفريقيا أما رول بدن أفريقيا كمده مالين معلمها كمده أيي إن تكدن زيلع قديم كأ أي أساسه هاي
geeska Afrika oo meelo badan wax laga soo degsan jiray طبعا takada marka hadda maanta imaado طبعا ma takada ay maraakiib weyn ku xiran yihiin marka la fiiriyo takadaha kale ka waaweyn sida Berbera kale طبعا oo ka caalamisan laakiin taariikhdu waa maguurtaan haddaad dib u fiirino meeshaan ka imaanay waxaad qiyaasi kartaan waxaad aragtaan ama aad aragtaan yani sida ay tahay dhul kan hortanada ka muuqda biyahana ay dhinac labada dhinac ka kala jiraan daqiiqadan muuqaalkan aan duubayo aniga aan meeshaan jooga nasiibkaan u leh adigana aad aragto internetka aad ka aragto waxaad daawanaysaa takad ka mid ah ama takad كمدة تكذاها أو قديم سنة عالم كان ابن بطوطة هل كان يكسر دقي هل كان يكسر دقي تكدى أنا يكسر دقي ماشي أنا يكسر دقي طبعا ميلها كمدة أما هل كاس حتى مت كمدة يكسر دقي كدمنا طبعا هل كان أيوم مري هل كاس أيونا كجلي مجال ذا زيلع وكنت المام إنها تاي مدينة مترامية الأطراف إريقا سيوها ذيك سدي مقالو وين ولها سوق عظيمة وحين لا هي سوق آدي وين sidoo kale waa dhismo ka mid ah dhismayaasha qadiimka ah ee magaalada Zeylac waagi hore dadka reer Zeylac meel walba caalamka ka tagaan waxay huwanaan jireen magaca Zeylaci hebel az-Zeylaci hatta hadii yihiin ama Soomaali ama dadka Carab baa deganaan jiray dadayo kala deganaan jiray Cumaaniin ayaa mar deganaan jiray qof walba oo ka soo jeeda Zeylac waxa la dhihi jiray az-Zeylaci meel walbood marta tallaabo walbood qaado وآثار إيو اسمها القديمة اسمها سيدو كلا أدركتان نقشة دي سياني قرحان تيطلقح يلا قسمي يعني رخام ومتكمدة آثارتي أمر وحادثة عثمانينتي دولة دي عثمانينتا أيها ديستي أو أصلا أتك أخريني سوا معمارك أما طراز كإسلامي لور ديستي magaalada runtii insaan aniga maleynayay way ka dad badanta marka la fiiriyo runtii adkaanshiyaha qaabka lagu imaado moodooyinka soo gala magaalada ee gawaarida aado in ay yar yihiin ama ay aragta xitaa inaad tagto magaalada laakiin sidoo kale yani magaalada dad badan baa jooga waa la joogaa dukaan ma ku yaalo wax walba ku yaalo gaariga xitaa booliska dad aragtaan Somaliland magaalada waa la degan yahay dad badan baa jooga laakiin قان سببتها أي وأذكر إلا إمادة زيلع مقالة رتي تاريخية قديمة هذا وحنا جوجنا لين عبدة طبعا دركتان بدة نوع مقطع تاككستو مقالة كمل سيدان صوشة جنيبة والرادد قديمة سيد هذا نوع مقطع وحال قياسة يا هذا الرادد كان إن يا إما عثمانيين تينا كتجان يا إن كتجان سلطنة دي عدل أما سلطنة دي كل دوانا سوماليات سومرين اسمها نضح حق نجرو لنعان وحوها حبسي ان واقع عثمانيين تكتلين جرين زيلع اي يعني حبسان وهذيك سنجرين ما شاء الله مال والبا ان اسمه قديم تاريخي مسجد كان sidoo kale inkastoo uu muuqdo masjid cusub waa la dayactiray kaliya laakiin waa mid kamid ah masaajidada ugu qadiimsan waliba waxa la sheegay inuu ku soo xigo masjidka qiblateynka inuu ku soo xigo hatta marka aragtaan manaarada kale alwaaxda ka taagtaagan ayaad ka akhrisanaysaa qadiimnimadiisa